kulanti wanaagsan daawadaal kuna soo dhawaada janaalkeena ka ah wararka aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada ugu waaweynna waxaa qayb ka noqon doona daawadayaal wararkii ugu dambeeyey shirka arrimaha doorashooyinka qaranka oo maanta si rasmi ah ugu furmaya magaalada Muqdisho. Waxaan soo gudbi doonaa qodobada horyaala ra'iisul wasaaraha oo loogu baahan yahay in uu shirka la hortago iyo kuwa xalka u baahan iyo kuwa markaas hore loo xariyay oo u baahan in hore loo sii ambaqaado. Haddaba madaxweyne Farmaajo ma ka qayb galaya shirkaas? Su'aalo ayaa la saarayaa ama calaamad su'aal ayaa la saaray in uu ka qayb galayo iyo in kale. Macluumaad ku saabsan ayaa daawan doontaan. Howlana waxa uu kulmo kala duwan oo shirka ku saabsan hal la qaatay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. Si gaar ah waxa uu ula kulmay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay soo gaaray Muqdisho. Qodobada kale aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdina waxa uu jeediyay hanjabaad oo dadku ku filaysaneen oo guud ahaan Soomaalida meel kasta ay degto. Waxa uuna sheegay in ictiraafkooda ama aqoonsigooda ay ku raadsan doonaan dhiig in ay daadiyaan. Waa sheeko kale ama markaa hadal kale oo cajiib ah oo markaa dadka ay aad ula fajaceen. Waan soo gudbi doonaa daawadayaal. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa Mareykanka waxa ay ka hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Fariin adagna waxay u direen Masar Roble oo shirka gudoomi doona iyo madaxda kale ka qaybgalaysa. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal iyo warar kale caalamka kuwooda ugu waaweyn arrimaha diblomaasiyadda ee xaaladda dalka Syria gaar ahaan dhulka reer Falastiin magaalada Gaza. Waxaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha ugu dambeeyay ee halka ka dhacay iyo sida xaaladdu ay tahay kadib xabad joojintii ma dhaqan gashay. waa dadku ayaa aad u falanqeynaya iyo dabaaldegidii shacabka reer Falastiin. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe ma saaran gambalka furo una share garay saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo commentiga like inoo reebaya. aad baad u mahadsantihiin. waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaa saacadaha soo socda maanta lagu wadaa inuu si rasmi ah ugu furmo shirka wadashiga arrimaha doorashooyinka ee dowladda federaalka ee ku maamul goboleedyada dalka. shirkan oo ah mid xasaasi ah waxaa wararku ay sheegayaan inuu ka qayb galayo madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhanka kale ilo xogogaal ah ayaa janaalkeena ka ah wararku xaqiijiyay in madaxweynaha mudaharaadkiisu dhammaaday uusan ka qayb gelin. sidoo kale waxaa shirka qayb ka ah wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo asigu isugu yeeray qorshaha gogosha iyo in dhammaan madaxda kale ee maamul goboleed ay kasoo qayb galaan. shanta madaxweyne maamul goboleed ayaana haatan ku sugan magaalada Muqdisho. waxaan ugu dambeeyey madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe oo maanta gelinka horeba la filayo inuu soo gaaro. sidoo kale waxaa shirkan oo looga aneysanayo isbarwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka saldhig u ah heshiiskii 17 Sebtembar ee gaareen hogaamiyaasha Soomaalida. wararka waxay sidoo kale intaas ku darayeen in ay goordhow caasimadda uu kasoo wajahan yahay madaxweynaha Hirshabelle Maxamed waa markaasi Cali Guudlaawe Xuseen oo asiga ku maqan magaalada Jowhar kadib markii magaaladiisa maamulkiisa ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidamada ilaalo ah iyo kuwa maleeshiyada macbuusin lagu magacaabo. waxaa shirkan oo kusoo aadaya xilli xasaasi ah oo lagu wado in lagu soo gabagabeeyo arrimaha culus ee go'aanada masiiriga ah ee doorashooyinka in dalka markaasi 2020 doorasho xor iyo xalaal oo loo wadhan yahay ay ka dhacdo. waana xilligii u adkaa ee kala guurka dalka Soomaaliya muddo 3 sano kadib ee soo marto. meesha caalamka dadka kale ee Soomaaliya ayaa sidoo kale isha ku haya natiijada shirkan oo si aad ah loogu bogaadiyo xukuumadda Ra'iisul Roble. dhanka kale intaan ka bixin arrimaha la xiriira ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo shirka maanta sida weyn loo filayo ee markaas in uu ka dhaco magaalada Muqdisho u dhexeeya madaxda dalka iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamulada dowladda federaalka ka ah xubinta ka ah ayaa waxaa uu dhanka kale xalay wasaare Maxamed Xuseen Roble kulan uu la qaatay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. waxyaabaha ugu waaweyn ee xogteeda la helay waxaa ka mid ah in Saciid Cabdullaahi Dani oo markaas shirka si wanaag ah oo niyad ku jirto uu wasaaraha ku soo dhaweeyay xogo ilkaasi. waa sida ay tilmaameen xogaha markaasi ku dhow xafiiska wasaaraha ay sheegayaan. faahfaahin dheeraad ah laga bixin laakiin waxyaabaha ay ka wada hadleen hase yeeshee wuxuu uu kulanka qayb ka yahay kulamada uu la qaadanayay madaxda kale ee maamul goboleedka ku sugan magaalada Muqdisho. Roble ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynayaasha Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed oo horey ugu sugnaa magaalada oo la filayo in uu ka furmo shirka arrimaha doorashooyinka wasaare Maxamed Xuseen Roble uu hogaaminayo. waxaana weli magaalada markaasi ka maqan Masar Guudlaawe madaxweynaha Hirshabelle. ugu dambeyntii laakiin si weyn loo filayo in uu soo gaaro maanta gelinka hore magaalada Muqdisho. qaybihii hore ee janaalkeena wararka ka ahaa waa markaasi janaalkeena ka ahaa wararka ayaa daawanaysaa. fadlan haddii aad nagu xidho subscribe wasaaro gobolka furo
una sheergareey saaxiibada meel kasta ay joogaan adigoo laagay kuma tegina inoo reebaya intaanan ka bixin qodobo kale ayaa inoo soo socda arrimaha diblomaasiyadda caalamka iyo warar kale ee Soomaalida hase yeeshee shirka ayaa qodobo waaweyn ay ka taagan yihiin Mareykanka ayaa war ka soo saaray shirka iyo go'aanada laga fili karo iyo natiijada kulmada isha lagu hayo digniin waxay u direen dhinacyada markaas shirka isku imaan doona war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa baaq u dirtay hogaamiyaasha Soomaalida ee ku jira magaalada Muqdisho fariinta ka timid waaxda Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxaa lagu cadeeyay in wasaar Roble uu haysto taageerada buuxda ee Mareykanka hogaamiyaasha Soomaaliya waa inay ka faa'iideystaan fursadaha oo ay hadda dhammaystiraan heshiis doorasho oo dhan ugu jirto dadkooda iyo dalkooda wasaar Roble wuxuu haystaa taageerada buuxda ayaa lagu yiri fariinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka markaan ayaa ka dambeeyay war-saxaafadeedkii beesha caalamka ee shalay ka soo baxay kaas oo lagu baaqay in shirkan uu yahay fursadii ugu dambeysay ee dalka lagu jihinayo arrimaha doorashooyinka dalka waa hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo wasaaraha iyo dhinacyada kale ee Soomaaliya loogu baaqayay in fursadii kale ay haystaan taageero buuxda ee ka san dhinacyada beesha caalamka iyo Mareykanka taasina loo baahay in shirka uu guul ku soo dhacdo qaybihii dhexe ayaan isa soo gaaray daawadayaal fadlan haddii aad nagu cusub tahay maamin inaad subscribe saarto gobolkana furato oo sheegay saaxiibada meel kasta ay joogaan waayahay markaana Soomaaliland haddii aan aadno ictiraafka Soomaaliland oo markaa meel xun cad saaraya madaxweynuhu wuxuu ku hanjabay in haddii ictiraaf ay heli waayaan ay dhiig daadan doonaan waa madaxweynaha sarkaalka weyn ee Muuse Biixi Cabdi oo magacaabo wuxuu hadalkan ka sheegay 18 May meel lagu xusayay oo Soomaaliland ka mid ah wuxuu sheegay in dhiig badan u daayso ictiraaf raadinta sidii kala horeba ay ugu daayisay madaxweynaha ay ku doodo Muuse Biixi ayaa carabka ku adkeeyay in yoolka koowaad ee Soomaaliland uu yahay inay hesho ictiraaf xilli ay u dabaaldegayso sanadguuradii soddonaad ee kasoo wareegtay xilligii ay ku dhawaaqday madaxbannaanida ay ku doodo ee aan aqoonsiga caalamiga helin yoolka koowaad waa ictiraaf in aan helno oo uu noqdo Soomaaliland qaran jira oo markaasi qeyrkii wax la qaybsada oo golayaasha caalamiga ah aan cidna matali karin waxaana sheegay in haddii ictiraaf ay heli waayaan ay dadaali doonaan si markaasi ictiraaf ku helayaan dhiig badan ay u daadan doonaan waa dadka aad bay u falanqeeyeen arrintaa oo waxay ku tilmaameen hadal markaasi filowgaa ah oo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ka soo yeeray waa sarkaal jabhad ah oo warkiisa horeba ka mid ahaa saraakiisha Soomaaliland ka tirsan hase yeeshee markii uu soo galay dhinaca doorashada ayuu ku sheegay in markaas uu ictiraafka dhiig nooc walba u heli karaan ay ku keenayaan dhiig haddii ay ku daadinayaan waa sida uu ka dhawaajiyay waayahay ومركنا هدي أنه ورا كله هو وين أرمات المسجد عالم كان وحا كمذا فلسطينيين تو وحا دبال دقيقة وين شركة سميان جاهزة قصة يمزدك برجاسن القدس هالكاس أو إسرائيليين تو شيئين نحب جوجين كيقبان كده مركي عدادة حقوقن لكلمن كلمن أورك حماس أو markaasi difaaca shacabka reer Falastiin isla markaana si weyn ugu soo horjeeda gaalada weynaatay ee Yuhuudda iyo soo kalantay cunsurinimada ku weynaatay ee Falastiiniyiintu waxaa hadda degan magaalada Gaza iyo soo kalantay miiska barakeysan Al-Aqsa oo ay si nabad ah ay ugu socdaan shacabka iyo walaalaha reer Falastiin halkaas oo nacawda iyo markaasi ay ku heesaan kadib markii xabad joojintu ay dalbadeen Yuhuudda Israa'iil waxayna u adkaysan waayeen gantaalada kaga imaanay ururka Xamaas iyo shacabka reer Falastiin oo isku duwan iyo guud ahaan shucuubta muslimiinta oo si weyn ugu dhiiriyay gaalada dhibaatada ku hayso muslimiinta dalkaasi waxaa hadda la soo sheegayaa in bari ay ku jiraan oo ah in ay ka cabsi qabaan in mar kale ay weeraraan ururka Xamaas ay weerar ku qaadaan magaalooyinka waaweyn ee markaasi Tel Aviv ee dalka Israa'iil magaalooyinka kale ee agdhow halkaasina ay beegsan karaan ciidamada dirarka ah ee markaasi barakeysan ee mujaahidiinta ah ee lagu magacaabo Xamaas oo markaasi weerar culus ka fulinaya geeska Afrikana wararka ugu waaweyn haddii aan ku soo gabagabeeyno daawadayaal shacabka Eritrea waxa ay xorriyadooda dalka Itoobiya ka qaateen sanadkii 1990kii dalka Eritrea oo 30 sano xor ah weli doorasho kama dhicin dastuurka dalkaasi iyana si buuxda uma dhaqan gelin iyada oo ay muuqdaan wax sanadan oo markaas uu muujinaya in dalkaas doorasho aysan ka dhicin waxaan dalkaas maamulaya Asiyaas Afwerki waa madaxweynaha mayalka adag ee kursiga in muddo iskaga fadhiya وهي هذا ويلقوا دهان هالكاس يكون سوق بينه جنا كان ورا كافلنا هذا نقطة تاسو بسرعة بسرعة قبل كفرونوش أجلس حبذا أنا بتقوليه